dhegaystayaal 71 ayaa laga joogaa maalmihii uu baraarugu maansheeyey ee qaarkeed intuu hurdada ka heshay uu qaarkii kale gundhiyey 71 ayaa laga joogaa iyaga oo aad u dhalin yar maalmihii afarirdoodka xamar ay ku shiraayeen dukaankii calikaar maalmihii ay isku ballansanayeen 71 ayaa laga joogaa yaasiin xaaji cismaan iyo cabdulqaadir sakhaawadiin maalmihii ay inanba meel ka keenayeen ee iyaga oo dhuumanaya taalada umbeerta brimo ee bartamaha xamar ay hoosteeda ku tashanayeen waa maalmihii 13 barbaar ay isku dhaarsadeen meel ay joogto iyo shisheeyaha ka taliya ku ahaadaba Soomaalidii shanta loo qaybiyay inay gumaysiga ka dulqaadaan dabadeedna ay mideeyaan soo ma ahayn wayba ahayde 15 Maajo 1943 soo khamiista bari markii la gaaro 71 oo gow ah lagama joogi doono himiladaas weyn halgankii loo soo galay wixii dhibaato lagala soo kulmay wixii laga dheefay iyo mirihii ka soo baxay sidii loo curdan dhariyay intaba maanta waxba kaga noqon maayo oo waa wax la og yahay haddii aan yeelana waa hadaltirana cilmiga aftahamada kuma amaana dadkii maalmahaas da'yarta ahaa maanta sawaayeelka ay sidii og yihiin leegadu halgankii ay gobonnimada u soo gashay mid fudud ma ahayn dhiig bay u daadiyeen xabsi bay u galeen dibindaabyo oo idil bay ku muteen laakiinse iyaga qudhoodu labada dhaban midkood markii laga dharbaaxo kan kala dhiiban mayne way ka diriri jireen halganka ayaa dhabka ahaa Soomaali oo kobanna way isku halaynayeenoo gadaalkooda ayay ku ogaayeen waxaa haddaba jiray halgamaa magaciisa aydun in badan iga maqasheen si aan hagar iyo kala har lahayn halgankaas ugu adeegay kolba meesha halista wuxuu ahaa nin u hormari jiray taas ka sokowna wuxuu ahaa gabyaa weynoo guubaabinta iyo dhiirigelinta taageerayaasha xisbiga aan marna ka daalin mindhagaratee waxaan u jeedaa Allaha u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo barnaamijkan aan xus uga dhigayo aniga oo ku soo qaadi doona gabaygiisii quruxda badnaa ee uu ku soo koobi jiray taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa uguna muuqa dheeraa halgankii uu isba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee Cali Xusaya waa 12 Janaayo 1948 waxaa xamar ku sugan erga 4 dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa Ingiriiso waa Soviet oo waa Faransiiso waa Mareykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen waxa laga yeelayo Talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo Ingiriis oo Djibouti mooyee dhulka Soomaalida markaas wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee Israa'iil labada midkoodna dooni mayso markaas bay ergadii u dhiibtay dambaal dulucda xambaarsan gobonnimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meel mar ugu noqdo waxay leegadii abaabushay banaanbax ballaaranoo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligii dhuuna raac ma waayo Soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa banaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay waa goobtii ha noolaato ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay Cali Xuseen oo maanta goobjoog ahaa ayaa yiri itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii olol ka soo yeeray maad cadowga eridaan markuu inagu oogaanshay amlaydiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kurubku aargoostay nin ilaahay caasiyey raggii gowrac ku idleeyey albaabada kuwii ugu galee daalinka eryaayey ayuu tooy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujay ma arxamine nimankii ka jaray godabtii aasayle awlaaddii uu cunay u dhimay aramideedii iyo arbayaal dagaal u arrinsaday looma oonsado oo meeshay abbaaraan la eed ciilna ku abaadi sida ari tadcaareed kufriga laga unuun gooyey waagaa ilmada daadatay iyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciil la soo aragi maalinta labaad ee Cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib Talyaani iyo wixii ku jaal ahaa waa halkoodii leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin
dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagildaacin in la tago go'aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada Lake Success oo New York u dhow, waagaasna xarunku meelgaara qaramada midoobay ay ku lahaayeen. golihii dhexe oo xisbiga ayaa shiray, kadibna waxay go'aamiyeen xoghayihiisii guud oo markaas allaha u naxariistay Cabdulaahi Ciise ahaa inuu halkaa u sadcaalo waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo. hawl adag bay ahayd, wuuse yeelay. kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday 100,000 oo shilin. saa gobol iyo degmo kasta oo Soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey. anigan hadlaayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay 10 shilin ku qorayd. eelkarre Soomaalidii joogtana daboolista kharashkaas ay kaga qayb qaadatay. isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu Cabdulaahi London gaaray ee dayuuradii uu Maraykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo maleegay, kaasoo uu ka badbaaday kadib badmareennadii Soomaaliyeed ee magaaladaas joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen. wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii Cabdulaahi sidii loola yaabay iyo dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa. wuxuu yidhi 49 sanaduu maray ahaanaysay Cabdulaahi uunada markuu berigii noo aaday, waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay arli aanu garanayn, markuu ruuxa ku igbaaray istikhyaarka way kaa ceshaan ciida qooqan iyo England markuu ka degay bay xumaan uga asaaseen inaanu erigada raacin, bay amar ku dhiibeen axad bay baxaysay oo khamiis ima yiraahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaaye Soomaali aadaa jirtay oo kale dheesnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeen. rag ilaalaha baa loo baxsho eegi loo diray, ayaantay kacaysay fatuuradu ijaareen, ogada markay kaga rideen axad ma saarayn. ayaantuu majliskii tagayo ururkii dowlaadka intee buu ka yimid bay wax badan ku anfariireen. goortuu araajida hordhigay inankii loo yeeriye aasiyadu kama uur xumayn, way ayidayeen dhurwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeen. qaybtan kalena wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii Cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay Talyaani oo dowlado kale taageero ka haysta inuuba dabacsan yahay Soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta Afrika. dhambaalkaas isaga ah dadweynaha lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyay, dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray. waa 1949. bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu baryahaas Cabdulaahi ka daba diray kuna doodi jiray inaan Soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn, isaga oo liqa karila raggii sidaas ahaa oo markay soo dhowaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qaybgeliyey xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaaya. ayuu yidhi abuurkii xisbigan niman cuno ubixi daaqaaya oo eegga talinaayo oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiray. Cabdulaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsaday, annagu dowlad kuma aadna bay aqalki geeyeen. xaajadu adkaatay ee kolkay meel xun ku aroortay taar oogada duulayuu aarku soo diray, waxa laga akhriyay hadalladii oohinta lahaa. wakhtigaa idaaradu shir bay u ololeeyeen, ummadoo dhan baa qaylisoo laysla oogsaday. ingiriisku nooma ogoleen urarka maantiye oblikaanu ugu soo baxnay amarkii noo diiday. albaabada galaayo wuxuu oru dhaqaaqaaba goortaan asmixi weynay buu doontay armiga askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaye isna eediyey dhagax tuur colkuu soo abaabulay. cali xuseen allah u naxariistay wuxuu gabagan tiriyey 12 Oktoobar 1954 markii koonfurta loogu dhawaaqay ismaamulkii gudaha ee daakhiliga loo yaqiin, markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed uu hawada ka babado. isaga oo haddaba taas ku dhaadanaya guud ahaanna SYL libta siinaya ayuu gabagii ku soo gabagabeeyey
iyagiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa oogadaas suray. dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.